السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان اغيارتي توبان دي سلامين عشر كان ما انتو حكو سابسي هاي سيدان ايشا كلر كده او بدل لنا اناقو استعمالنا فوتوشوب CS5 وعشرة waxaa loogu talagalay dadka bilawga ah inay ka faa'iideystaan aan Photoshop kan garanaynin inay insha Allah ka faa'iideysan doonaan markay hore waxaan sameynaa double click background ka sida aan background ka u furno kadibna waxaad ka dooranaysaa okay ka dooro marka waxa u jeedaa in background ka uu ku furan yahay waxa sameynaysaa waxa tagaysaa meeshan ay ku qoran tahay diagonal tazo tools ayaa dooranaysaa ama L ayaa taabanaysaa hadii kale right click dheh waxaad ku jirto saddex qaybtaana ka dooranaysaa diagonal tazo tools kadib markaa ka dooratid waxa sameynaysaa meeshan ayaa tagaysaa 200 ayaa ka dhiganaysaa isha sida ay kugu weynaato kadibna waxaan dooranaynaa isha square keeda aan dooranaynaa isha okay tartiib ayaa loo dooranayaa kale markii hadda kaamirada lagu duubayno xoogaa yar waa iska yara dhib badan tahay laakiin markii kala caadi way yara fududaa wax dhib ma lahan marka hadda waa soo dooranay waxa laga baahan yahay create new layer dheh kadib marka create new layer dooratid meeshan ayaad imaanaysaa inta markaad imaadid right click ayaad ku leedahay waxaad ka doonaysaa human saturation ayaad ka dooranaysaa isla markii ku soo baxay human saturation markaan waa awoodaa inaad isha colorkeeda xukuntid kana meesha hoosana saturation kana waa qafiifinaysaa highlighting iftiin yara u yeelaysaa color karatidna adiga ayaad saaranaysid kadibna markaan yareeyno waxaad u jeedaa isha in ay blue tahay balse meesha dhaxbartanka ay madowga ayaan rabnaa madowgiisa inaan ku soo celino marka waxaad sameynaysaa control plus leh hadana dib u soo weynay markii ku soo wanaado waxaad imaanaysaa meeshan ay waxa soo doonaysaa inta ayaa imaanaysaa eraser tool ayaa soo doonaysaa oo qaybta tirtirida ah ayaa soo dooranaysaa ayaa meeshan hoose inaad dhimaadid color kana waa inuu white ku saaran yahay isha cabirkeeda ayaad geysanaysaa intay cabirkeeda gudaha ku yahay kale ayaad keyboardka geysanaysaa hadii kale saad ugu weyn kale dib ayaa imaanayo meeshan hadda saan dhoo kale dhaxda dhib ayaa imaan waxa qabanaysaa control alt z sida u soo celisid control alt z sida kulligiis oo u soo celi kartaa marka maxaan sameynaa dhaxbartanka ayaan ku aadinayaa sidaan aan u ekaysiyo isha meesha madowda ha maran clickna ku siinaa may xoogaa wali wax yar la socdo ha mar hadana gaabi click ku sii that's okay marka hadda fiiriso hadana aad u weyneeyo isha gudaheeda madowgeeda waa soo celiyay kadibna markaan yareeyo waa u jeedaa isha quruxdeeda ayaa soo baxay marka isha sidaas ayaa kala kugu bedeli kartaa marka insha Allah bidna kariim wixii qaladana waa isku sheegi karnaa kulli qof kastana bil aadan oo qaldama marka muhiimadu waxay tahay inaan kala faa'iideysano sidoo dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'allama al-ilma wa 'allamahu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وجزاكم الله خيرا